Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada darsigeena maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa waxa loo yaqaano string functions and operators. PostgreSQL waxay leedahay string functions iyo operators oo noo ogolaanayo inaan edit ku sameyno magac iyo inaan laba magac iyo wixii la mid ah aan kulmino ama magac iyo number wixii noqotaba aan kulmino iyo inaan magac aan bedelno iyo inaan update ku sameyno. Marka maanta darsigeena waxaan kaga hadli doonaa qaabka laba magac iyo wixii la mid ah aan isku keeni lahaay iyo qaabab kale oo kala duwan. Haddaba keena aan aragnay anagoo isticmaalayno pgadmin4 keena. Intaanan gudagelin pgadmin4 keena aan fiirino documentationka string functions and operators ka. Halkan haddaad rabto inaad page-kan ay imaado documentationka waxaad si toos ah Google-ka ugu soo qoraysaa string functions and operators kadibna page-ka ugu horeeyo inuu noqonayo ayaan rajaynayaa. Page-ka ugu horeeyo aad soo galaysaa waxaa qoran postgres.org documents/functions string html. halkaa markaa imaado wuxuu leeyahay string functions and operators ayuu leeyahay. halkaa markaa imaadid waxaad arkaysaa sida string iyo laba xariiqmood oo vertical ah iyo string ayaad arkaysaa. tan waxaa loola jeedaa waxaa la isku keenayaa laba magac sida Axmed iyo Cabdullaahi iyo wixii la mid ah ayaa la isku keenayaa. haddaad doontid magac iyo number ayaad isku keeni kartaa adigoo isticmaalaya qaab ka duwan qaabkan. halkan saa u jeedidba qaybta labaad stringiga wuxuu ku leeyahay waxaad isku keenaysaa string laba magac oo alphabetical ah ayaad isku keenaysaa wax adigoo ku soo daraayo string non string input oo sida number iyo wixii oo bacdi xaraf ahaynin isku meel aad ku keeni kartid. kan xiga wuxuu ku xisaabinayaa inta bit ee ku jirto magacaas ama wuxuu noqdaba sida hadda Jos amal 32 bit ayaa ku jirto. halkan amal waxaad isticmaalaysaa character length oo ah magacaaga. tusaale magacaaga hadduu Axmed yahay wuxuu ku koobnaanayaa AHMED 5 xaraf ayuu ku koobnaanayaa. AHMED 5 xaraf ayuu ku koobnaanayaa magaca hadduu Axmed yahay. marka wuu xisaabinayaa had tusaale magacan meeshan example ahaan loo siiyay Jos amal ayuuna siiyay. Jos wuxuu ku kooban yahay 4 xaraf sida u jeedid resultadan wuxuu soo baxay 4 ayaa soo baxday. marka intaan iyo in badan oo kale ayaan maanta isticmaali doonaa keena aan isticmaalay pgadmin keena. halkan markuu ugu horeyso waxaan leenahay select soo dooro everything wax walba waxaad ka soo doorataa from waxaad inoogu soo doortaa customer-ka noogu soo door ayaynu leenahay customer qoraalka qaladnay select everything from customer. marka halkan saa u jeedidba waxaan soo dooranay daatii ku jirtay ee customer-ka. saan u ogaano length-ga ama inta xaraf uu ku kooban yahay magac waxaan isticmaalaynaa sida tan ayaan isticmaalaynaa. halkan waxaynu leenahay select ayaynu leenahay length-ga ka soo dooro ayaynu leenahay. halkan ayaan gelinaynaa magacyada first name-da ayaan rabnaa inaan ogaano inta xaraf ay ku kooban yihiin dhamaantooda. halkan marka waxaan gelinaynaa first name ayaan gelinaynaa maadaama aan rabno first name kaliya. halkan maxaa gelinaynaa first name ayaan gelinaynaa. then maxaynu leenahay halkan saa u jeedidba waa u jeedaa length-ga wuxuu ku leeyahay magaca koowaad ee halkan meesha ku bilaabanayo wuxuu kooban yahay 5 xaraf 4 8 sida tan oo yaan. qaybta labaad ama tusaalaha labaad waxaan fiirinaynaa qaabka aan isku keeni lahayn laba magac sida magaca koowaad iyo magaca labaad ayaan fiirinaynaa qaabka la isku keeni lahayn. marka waxaynu leenahay select waxaynu leenahay halkan select first name laba xariimood oo vertical ah bacdeen waxaynu leenahay last name kadib waxaynu leenahay ku soo dooro customer-ka. halkan marka waxaynu leenahay run ayaynu leenahay. marka halkan waa u jeedaa labada magac waana loo soo dooray Jerry Ely iyo magacyo iska adag waaye Mary Smith iyo laakiin waxa waaye wax space ah uma dhaxeeyo waxa waaye uu isku keenay. marka saan u xalino maxaan isticmaalaynaa aan space aan u dhaxaysiino sida magaca koowaad iyo magaca labaad. sidaas darteed halkaan waxaan isticmaalaynaa apostrophe ayaan isticmaalaynaa. halkaan marka waxaynu leenahay space then laba xariiqmood kale ayaan ku darsanaynaa oo vertical ah. marka waxaynu leenahay run. marka halkan waa u jeedaa Jerry Ely iyo Mary Smith iyo waxa waaye Patricia Johnson iyo
had waxa u dhaxeeyo space ayaa u dhaxeeyo sida tan ayaa loo xalinayaa haddii ay isku dhow yihiin ama isku dhagan yihiin halkan saa u jeedidba meeshan waxa waaye question mark iyo waxa waaye qoran question mark iyo waxa qoran column iyo question mark yani haddaan rabno inaan qaabkan wax ka bedelno waxaan isticmaalaynaa qaabkii hore aan usoo isticmaalnay oo add alias ayaan isticmaali karnaa oo yani magaca sida tan noogu soo bandhig ayaan dhihi karnaa so anagoo isticmaalayno maxaan isticmaalaynaa marka sax aan samaynayno halkan waxaan dhihi karnaa oo halkan meesha aan joogno waxaan dhihi karnaa si aan u samayno waxaan dhihi karnaa as a full name noogu soo bandhig full name noogu soo bandhig ayaan leenahay waa ujeedaa marka meeshii oo column iyo waxa qornay waxaan loogu soo bandhigay full name ayaan loogu soo bandhigay waa ujeedaa sida tan waad samaysan kartaa marka mid kale aan isticmaalayno waxa waaye qaabka aan ugu bedeli lahayn magacyadan xarfo waaweyn iyo xarfo yaryarba mar qaab noocee ah magacyadan oo first name iyo last name kan meesha ku yaalo ama first name ka saa doontidba aad uga dhigan kartaa xarfo waaweyn ama capital sida tan ayaad isticmaalaysaa halka markaa joogtid marka waxaad isticmaalaysaa round bracket ama parentheses ayaad isticmaalaysaa marka waxaad leedahay upper waad xiraysaa mid kale ayaad tagaysaa waxaad leedahay upper marka waxa waaye halkaan ay imaanaysaa waxaad leedahay select soo dooro first name soo dooro oo waxaad leedahay capital letter ah haddana waxaad kala soo doorataa leedahay capital letter oo last name ah waxaad soo doorataa oo magaca ahaan igu soo bandhigtaa as a full name igu soo bandhig ayaad leedahay column-ka magacaas ku soo qor waxaadna ka soo doorataa leedahay customer ka soo dooro marka sida tan ayaa loo soo bandhigayaa halkaan sidoo kale waxaan isticmaali karnaa lower letters ayaan isticmaali karnaa ama xarfo yaryar ayaan isticmaali karnaa halkaan meesha upper bis ayaad waxaad ku bedelaysaa maxay lower run ayaad leedahay waa ujeedaa dhammaantood waxaa loo bedelay xarfo yaryar sida tan waad isticmaali kartaa tusaale kale aan isticmaalno xoogaa ka adag tusaaleyaalka hadda aan soo isticmaalnay oo aan isticmaalno customer mar kale aan soo bandhigno waxaan leenahay select sawir ayaa naloo soo bandhigay tusaale waxaad soo qaadaa waxaa noo keedsan dad macaamiil badan ayaa noo keedsan macaamiishaas macaamiil ka mid ah ayaa waxa waaye email la-aan waxaan rabnaa marka inaan email u sameyno qaab noocee aan ugu sameyn karnaa ama macaamiil oo ku jirto daatadeen oo email la-aan qaab noocee ah email aan ugu sameyno aan ku garano then waa ujeedaa halkaan saa ujeedidba waxaana loo soo dooray magacyadii oo first name-adii iyo last name-adii oo la isku daray oo gmail ah ayaa noo sameeyay halkaan saa ujeedid sida tan waan isticmaali karnaa si aan magac u horeeyo aan uga dhigno capital maxaan sameyn karnaa halkaan documentation-ka mar kale nagu celi halkaan markaa imaadid waxaan raadinaynaa halkaan markaa joogtid halkaan saa ujeedid left string text meeshan la leeyahay halkaan saa ujeedid waxa waaye labada xaraf oo ugu horeeyo ama halka xaraf ugu horeeyo ayaad waxa waaye midigna waa samaysan kartaa right xarafka ugu horeeyo waxaad ka dhigi kartaa capital haddii laba magac ay yihiin labada magac xarafka ugu horeeyo ayaa waxaad ka dhigi kartaa capital halkaan saa ugu jeedidba left string text iyo number ayaad isticmaalaysaa oo integer ah marka waxaan rabnaa xarafka ugu horeeyo inaan capital aan ka dhigno number 1 aan samaysan haddii labada ugu horeyso aad rabtan 2 ayaad meesha aad gelinaysaa insha Allah marka magaca koowaad iyo magaca labaad ayaan rabnaa sidaas si lamid ah halkaan marka waxaan sameynaynaa isla sidii ayaan isticmaalaynaa oo waxa waaye magaca labaadna sidaas ayaan u isticmaalaynaa oo waxaynu leenahay kan ugu horeeyo waxaad dhigi kartaa upper inooga dhig ayaad dhigi kartaa run ayaad leedahay waa ujeedaa jelly iyo smith m kan waxa waaye xarfaha ugu horeeyo waxaa laga dhigay capital laga dhigay sidoo kale kan laftirkiisa waxa waaye waxaad ka dhigi kartaa leedahay magaca labaad ee xarafka koowaadna waxaad ka dhigaysaa leedahay capital sidoo kale waa laga dhigay waa ujeedaa sida tan ayay u shaqeynaysaa marka qaabkan waa u isticmaali kartaa haddii aad doontid qaabkan haddii aad doontid waxa waaye oo halkaan magacyadan column-kan sidaan haddaadan rabin sidii si lamid ah waxaad isticmaali kartaa maxay waxaad isticmaali kartaa as alias ahaan inoogu soo door ayaad dhigi kartaa oo waxaad leedahay as magaca noocee rabtaa in lagugu soo bandhigo as a customer id ayaad leedahay ama customer email saa doontidba waa ka dhigin kartaa waa ujeedaa kor waxaa lagugu soo bandhigay as a customer email string functions operatorska qaabka loo isticmaalayo marka la joogo SQL ayaa maanta darsigan ku saabsanahay waxaan filayaa wax badan in laga fahmay intaan darsigan darsi lamid ah kulmayno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh